بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومجلس كيني سقالات إن كوكسو ربيني الحادكة مجالس روحان كسو الشاقني الدلوينك تلمامي الدونكينو بالأولاد هايو إلهي جريتان كيسا كدي وحين وحي شبهاتكي وحين كسو جوابني صدح شبه أوهرة عاونا تروا شبهدي أفراد إن شاء الله oo ah sharka wana mas'uul inta badan ay u arkaan in iyaga ay xujo u tahay ama ay saacidayso manhajkooda oo ah meelaha ay maxay ahayd ku gabadaan ama gabaadka ay ka dhigtaan saadaraadid markaa insha Allah waxaan jecelnahay caawa inaynu taa ka jawaabno insha Allah intaynaan sharka iyo hawlihiisa iyo tacriifkiisa aynaan gelin iyaga laftirkoodu sida ay uga faa'iidaystaan ama ay ugu doodaan waxaan jeclaan lahaa marka hore in horta aynu isla eegno sharku ma yahay wax ilaahay loo tiirin karo subxaanahu wa tacaala oo magac ma loogu bixin karaa ama ma loo idaafayn karaa oo ma odhan karaa sharka ilaahay waa abuuray oo isaga ma loo nisbayn karaa waxaynu ognahay afcaasha ilaahay waxa loo kala qaybiyaa sifaadka ilaahay waxa loo kala qaybiyaa sifaad daati ah iyo sifaad ficli ah marka sifaatu daat waxa looga jeedaa waa sifaadka mashii'ada ilaahay aan ku xidhnayn sifaatu alficli waxa looga jeedaa waa sifaadka mashii'ada ilaahay ku xidhan oo markuu doonana uu samaynayo marka uu doonana iska daynayo sida nuzuulka iyo istiwaaga iyo khalqiga iyo mar haddaba haddii sidaa ay tahay mararka qaar waxa dhacda sifadu inay noqoto labadaba oo sifatu alficli iyo sifatu daat labadaba ay noqoto marka sida khalqiga inaynu joogno ama kalaamka oo kale mar haddaba haddii sidaa ay tahay khalqiga iyo sifada abuurku waa sifo ilaahay weligiiba ku sifaysnaa waana sifo markaa maxay ahayd ficli markuu doono wax abuuri karo shayga uu doonana uu samayn karo haddaba khalqigu waa maxay waa ficilka iyo sifada daatada ilaahay ku sugan weeye ee makhluuqa munfasilka ah ee kownka yaalla ma aha sifadii khalqiga ee ilaahay u lahaa taas waxay naga caawin doontaa markaa inaynu masalada marka sharka ilaahay loo tirinaya fahno marka waxaan leenahay sifadan khalqiga ee ilaahay uu ku sifaysan yahay waa sifada daatadiisa isaga ku sugan ee ma aha mafcuulkan iyo makhluuqan munfasilka ama aha sidaa daraaddeed afcaasha ay bini aadamku sameeyaan ilaahay baa abuuray laakiin afcaasha ilaahay uu abuuray ee bini aadamku ay leeyihiin haddii iyagu ay sameeyaan oo qofku uu qof dilo qof dhaawaco xumaan sameeyo gaalnimo uu sameeyo cidda ficilka samaysee faacilkaaba loo tiirinaya ilaahay baa abuuray afcaasha laakiin ficilka cidda samaysay qofka gaalnimada sameeyey isagaa faacil kufri ah qofka xumaanta sameeyey ama zina sameeyey ama khamriga sameeyey isagaa faacilkii ficilkaas ah cidda loo tiirinaya markaa waa ciddan faacilka ah ee makhluuqaadka ee bini aadamka ee ilaahay abuuray loo tiirin maayo oo qofku hadduu tukado qofka tukado waa bini aadankan qofka gaalnimada sameeyey waa bini aadankan markaa ficilkaa marna lagama yaabo in ilaahay loo tiiriyo oo la yidhaahdo isagaa sameeyey markaa sharkayna kownka arkayna dhici doona insha allahu waa sharda haddii makhluuq ay sameeyaan cidda samaysa loo tiirinayo markaa lagama yaabo ilaahay loo tiiriyo subxaana wa tacaala sababta aan sharka ilaahay loogu tiirin waxa weeye khalqiga iyo abuurku waa sifada ku sugan iyo ficilka ku sugan daatada ilaahay subxaana wa tacaala ee ma aha makhluuqan munfasilka ah ee mafcuulka ah ee adduunyada yaalla sidaa daraaddeed ilaahay loogu tiirin maayo oo loo nisbayn maayo sharki intaa hadda marka kasoo gudubno aynu u nimaadno maxay ahayday mawduuca masaladan aad bay uga faa'iidaystaan ama aad bay ugu doodaan tusaalena waxay noogu filan mid mulxida oo kuwa ilxaadka weliba u dooda ah oo William Rowe la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi mushkiladda sharku waxay ka soo horjeedaa jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala sababta waxa weeyaan buu ku leeyahay tanaaqud baa ka dhexeeya ilaahay oo ah alla khayr leh iyo in uu shar yimaado marka labadoodu waa midkood la waayo marka mar haddii aynu si yaqiina u arkayno oo aynu adduunyada ugu arkayno in
shar uu jiro oo adduunka uu shar ka dhacayo taasi waxay keensanaysaa inaan ilaahay jirin halkaasuu istaagay marka waynu soo noqon doonaa waxyaabaha iyaga lagu ictiraaday laakiin waxaan doonaa hadda inaan ogaano sida lagu faa'iidaystay intaa markaan ka soo gudubno oo aragtaan khalfiyada iyagu ay ka taagan yihiin sharka iyo qaabka uga faa'iidaysteen sharku waa maxay horta culimada muslimiintu shar maxay u yaqaanaan sharka waxay u yaqaanaan markaad eegto laba qaab waa wadcu shay fii gayri mawdici shayga inaan meeshiisa horta la dhigin ama maxay ahayde cadamul khayr khayrba inaanu jirin baa shara khayrba la waayo shaygani aan wax khayraba lahayn wax faa'iida aanu lahayn wax dheefa aanu lahayn ayaa shara laakiin shaygu hadduu khayr iyo wanaag iyo dheef u leeyahay sidaan arki doonno insha allahu waa laga yaabaa in sharkiisaas markaa shar nisbiya u noqdo haddii lacalla sharba uu yeesho wey haddii kalena de sharba ma lahaba haddii shaygu khayr markaa sharki horta waa khayr la'aan oo khayrki iyo sharki way iska soo horjeedaan haddaba sharka labaynu qaybinna shar xaqiiqi ah oo maxdi ah oo aan wax kala lahayn oo weji kasta sharka ah dhinac kasta sharka ah iyo shar nisbi ah oo idaafi ah oo dhinacyada qaarna sharka ah dhinacyada qaarna maxay ahayde khayr iyo faa'iide ka ah haddaba haddii sidaa ay tahay kownkaynu joogno ka hore kama dhaco adduunkanaynu joogno laguma arka shay gebi ahaanba shar ah shay gebigiisu wada shar ah oo halka aad taabataaba ay shartay oo wejiga aad ka eegtaaba ay shartay adduunyada kama jirto kownkan iyo makhluuqaadkan dhex taagannahay shar noocaa ahay kama jiro ee waxa laga yaabaa ka labaad inuu jiro ka nisbiga ahi sharka nisbiga ahi inuu kownka uu ka dhaco ayaa laga yaabaa markaa isna laba qaybood buu noqon doonaa oo aynu u qaybanayna sharka haddaba nisbiga ah ee laga yaabo dhinaca inuu khayr ka noqdo dhinacna inuu shar ka noqdo ayaa waxaan leenahay arrimaha sharka keenaya waa arrimo cadami ah ama arrimo wujuudi arrimo macnaha aan jirin ama arrimo jiritaan leh oo jira markaa arrimaha cadamiga ahi waxa ay maxay ahaydee ay diidayaan shayga jiritaankiisii ama inuu yimaado kownka ama wujuudkiisuba inuu daa'imo ama kamaalkiisa waxyaabaha noocaa ah ee cadamiga ee diidaya mararka qaar shar noqon kara waa kow ka wujuudiga ana haddii la dhahno shar wujuudiya jirana sharka wujuudiga wuxuu noqonayaa kullu maa yadaadu alxayaa wax kasta oo nolosha kasoo horjeeda waa shar ama baqaa'ul kamaal kamaalku inuu baaqi shayga baqaagiisa iyo shayga kamaalkiisa wixii kasoo horjeeda ayaa shara markaa sharka inay dhahno maxay in shaygu markuu wujuudi uu noqdo ee shar uu noqonayo waa inuu shayga noloshiisa kasoo horjeedaa ama baqaagiisa uu kasoo horjeedaa ama uu kamaalkiisa kasoo horjeedaa markaasuu shar noqonaya haddii marka uu cadamiga yahayna marka maxay ahaydee in la waayo arrimihii daruuriga u ahaa shayga jiritaankiisa ama waaritaankiisa ayaa shara haddaba marka sharkii labadaa qaybood aynu soo qaybinno aynu tusaale u soo qaadno marka cadamka maxaa looga jeedaa waa in de shardigii uu shaygani ku hagaagayey ama uu maxay ahaydee ku shaqaynayey ama nidaamkiisu ku shaqaynayey dee la waayo ama maxay ahaydee khayrkiisu inuu taab noqdo la waayo tusaale ahaan cadamu sabri ama cadamu alcadaala ama cadamu alcifa waa cadam haddaba cadamkaasi waa shar oo wuxuu shar u noqon doonaa tusaale ahaan haninimada iyo hodannimada qofku haddii uu hodan noqdo oo qof cifo leh aanu ahayn oo aan dhowrsoonayn waxaa laga yaabaa hodantinimadiisaasi inay u horseedo fisqi xumaan khamri zino inay u horseedo markaa sharkan yimi waa cadam baa keenay oo ah cadamulcifa keentay ama hadduu sabriba kari waayo oo nimcadii ilaahay uu siiyo ku sabri waayo oo uu daadaadiyo ama uu dadkii ku dulmiyo amaba cadamkan ayaa markaa maxay ahaydee shar ah ee qaninimadeedu siduu iyadu iskeed iyo daata ahaanteeda uma aha maxay ahaydee shar uma ah marka hadda waxa keenay waxa weeye waa cadamkaas wax kastoo soo qaadana waa saas hadday noqoto qaninimada hadday noqoto awoodda iyo baawarka qofka ilaahay markuu siiyo shaygu sidiisa uma ahee laakiin waxaa laga yaabaa in shuruuddiisii ama waxyaabihii maxay ahaydee kamaalkiisa keenayey ama waxyaabihii jiritaankiisa keenayey in la waayo markaa sharku wuxuu ka imanayaa waa cadamkaasu markaa ka yimi waay marka taasi waa markii cadamka haddaba
waxyaabaha mawjuudaadka ah oo tusaale ama qeynimo ha noqoto ama waxyaabaha kale arki doonaba ha noqoto lagama yaabo iyagu inay daata ahaantooda ay shar u noqdaan ama ay sabab shar ugu noqdaan sharka adduunyada imanaya shay daatiyo meel taagan ma ahee wuxuu ku imanayaa bilcarad waa shay maxayda ku soo dirriyey oo aan laazim u ahayn oo ama shuruuddii wax ka mida la waayo ama awsaaftiisi wax ka mida la waayo tusaale ahaan ka soo qaado dulmigu waxa sabab u ah waa quwatul ghadabiya awoodda ilaahay uu ku abuuray bini'aadanka ee cadhada ah haddaba awooddaasi sideeda uma ceebaysna shar uma aha bal waxaabay shar iyo naqsi noqon lahayd haddii qofku aanu awooddaa lahayn oo dee xayawaanna iskama difaaceen wax kale iskama qabteen ma dagaalameen ma halgameen isma difaaceen waxaaba keenaysa inuu isdifaaco awooddaa ilaahay ku abuuray haddaba goormay shar noqonaysaa waxay shar noqonaysaa haddii majaalkeedii laga leexiyo meeshii loogu talagalay haddii laga leexiyo oo tusaale ahaan qof aan dulmi mudanin qof aan maxay ahaydii mudanin inaad disho ama qof aan mudanin inaad dhaawacdo ama qof aan mudanin inaad maxay ahaydii dhibaatayso inaad dhibaatayso marka hadda eeg iminka maxaan haynaa quwatul qadabiya waaba awood qofka bini'aadamkii aanu ka maarmayn iyadu sideeda shar uma aha sharkii wuxuu ka soo galay jaanibka ah maxalkii ay ku dhacaysay qofkan haddii aanu mudanin in la dulmiyo ama la dhaawaco ama la dhibaateeyo markaasay shar noqonaysaa markaa sharkeedu waa shar idaafi ah oo ah qofkan madluumka ah oo tusaale ahaan nafti laga qaaday ama maalkiisa laga qaaday ama dhaawacii dhib loo geystay laakiin daata ahaanteeda awooddaa ilaahay uu ku abuuray iyadu shar uma aha dhinaca kalena waxay shar ka noqonaysaa qofkan daalimka ahi oo ninkan daalimka ahi dee maxalkeedii maxalaan ahayn buu dhigay waaynu soo marnay sharku inuu yahay wadcu shay fii hayri mawdici shayga inaanan dhigin meeshiisii markaa iminka awoodda iyo difaaca iyo dagaalka booskiisii boosaan ahayn buu dhigay ninkan daalimka ahi xaggaasuu sharku ka yimi laakiin haddii booskeedu uu dhigi lahaa oo tusaale ahaan uu iska difaaci lahaa tuug ama uu iska difaaci lahaa maxay ahaydee mooryaan ama uu iska difaaci lahaa libaax ama uu iska difaaci lahaa wax kale oo dhibaataynaya awooddaasi waxay noqon lahayd marka booskeedii iyo meesheedii loo adeegsado khayr bay noqon lahayd khayr iyo wanaag bay noqon lahayd laakiin maanta maadaama oo jaanib kale uu adeegsaday oo jaanibkii loogu talagalay aanu u adeegsanin markaasay shar noqotay adeeg markaa ashyaada mawjuudaadka ah aynu arkayno min xaysu wujuudihi isagu laa yakuunu sharan walaa sababan lishar shar ma noqdo oo shar ma aha sababna shar uma noqdo oo sharkiina sabab uma aha marka hadda iminka quwatul qadabiyadaasi iyadu sideeda shar uma aha sababna shar uma aha sharku waa wax caarida oo ku imanaya oo marka maxalkeedii maxalaan ahayn aad dhigto booskeedii boosaan ahayn aad dhigto markaasay shar noqonaysa laakiin haddii qaabkii lagugu talagalay ee ilaahay ugu talagalay iyo wanaaggeedii aad u isticmaali lahayd khayr bay noqon lahayd bal inaan quwatul qadabiya laguu abuurin oo ilaahay uu kaa joojin lahaa oo uu kaa dayn lahaa ayadaaba naqsi noqon lahayd oo dee xayawaan baa ku cuni lahaa iska dhaaf xayawaane waxyaabaha libaax iska day waxyaabaha ugu daciifsan baaba iska difaaci kari lahaynba oo ku cuni lahaaba marka in quwatu maxay ahaydii qadabiya oo quwadda isku difaacayso in ilaahay uu kuu abuuraa waxay ka mid tahayba kamaalaadka bini'aadanka dhibaatadu waxa ay ka imanaysaa oo sharku uu ka imanayaa marka aad dulmido cidaan dulmiga loogu talagelin maxal aan maxalkiisa ahayn marka aad dhigto wey sharkan waxaynu ku soo sheegnay waa wadcu shay fii hayri mawdici meeshii loogu talagalay meel ahayn markaad dhigto haddii libaaxaas iga difaacayso waa booskii loogu talagalo waa khayr laakiin qof daciifa oo muslima marka aad dulmido oo aad la dagaalanto oo aad naftiisii disho ama aad xoolihiisii aad qaadato markaasay shar noqonaysa shar caamana ma ahee waa shar idaafiya oo jusi ah oo qofkaa khaas ku ah tusaale nin cabdi ladhaa ama cumar ladhaa aad ku samaysay ciddaa aad ku samaysay buu sharkani ku kooban yahay adduunko dhan shar kama yaallo waynu arki doonaa muqaaradaadka mulxiyiintu ay sameeyaan ma aha adduunko dhan inuu shar yaalle ninkaa cabdi ama cumar ahee adigu aad dulmidin buu sharkaasi ku kooban yahay
iyo adigaagan sameeyey ee maxalkeedii aan dhigin bulsho ku koobay ee ma aha shar meel walba yaal tusaalaha labaad waxa la mid ah dabka tusaalahaas waa dulmiga oo quwwatul qadariya ka dhalanaya tusaalaha labaad waa dabki gubashada iyo xarqigu wuxuu ka dhalanaya waa dabka waynu ognahay manaafacaadka uu leeyahay oo haddii dab la waayo dee nolol jiri mayso suurtagalna ma aha inay nolol jirto haddii meeshii loogu talagalay la gubo tusaale ahaan oo kale xaabaad ayaad gubtay dhuxul baad shido dee raashin baad ku samaysanaysaa waa khayr iyo wanaagoo noloshii baa ku taaganba haddii laakiin maxalkeedii aanay ku dhicin oo tusaale ahaan oo kale aad gubto qof ama aad xayawaan ama wax kale aad gubto markaasay shar noqonaysa waana shar nisbiya markaa waxa la mida dilkii hadda haddii aad qof disho dilku sidii shaygaa wujuudiga ahayd waynagaa soo marnay sidiisa sharna uma aha sababna shar uma aha haddii ciddii loogu talagalay aad disho oo qof tuuga ama qof dilay aad u qisaasto waa khayr iyo wanaag laakiin qof aan mudanin marka aad disho markaasaa dulmigii maraya waayo wadcu fii hayri mawdici shaygan meeshiisa meelaan ahayn baad dhigtay cid aan mudanin inaad disho ayaa dishay aaladda wax lagu dilaya waa khayr oo haddaanay aaladdiga jirin dee waxba maynaan qabsanayn haddaanay xabadi jirin ama bir jirin ama wax la mid waa khayr iyo wanaag ciddii dulmi samaysay in la dilo oo qisaastii iyo gabofulkii ay sameeyeen lagu abaalmaraya waa khayr dhinaca wuu ka fiican yahay laakiin marka cid aan mudanin aad disho markaasuu sharku imanaya oo sharki wuxuu noqday maxay shay nisbiya waxa la mida wadcigii iyo galmadii marka maxalkeedii loogu talagalay aad dhigto waa khayr oo ubad baad dhali caruur baad dhali noloshii baad maxay haydey aad ka qayb qaadanaysaa jiritaankeedii tafiirtii baad ka qayb qaadanaysaa ooba laga yaaba xataa caafimaad inaad ka hesho marka maxalkeedii loogu talagalay aad dhigto wadcigii iyo galmadii waa khayr iyo wanaag iyadu sideeda shar uma aha goorbay shar noqonaysa markaad xumaan iyo zina aad la doonato iminka goortan ay sharka noqotay waa markaad xumaan iyo zina aad la doonato markaasay shar noqotay markaa sharkii wuxuu noqday maxay shay nisbi ah oo ciddaa khaas ku ah qofkan daalimka ah oo meesheedii meelaan ahayn dhigay iyo qofkan maxay hayday madluumka ah oo isagu aan mudanin waxa la mida sujuudi sideeda gaalnimo uma aha haddaad sanam u sujuuddo markaasay shar tahay laakiin haddaad ilaah u sujuuddo ka war waa afdal qurbaat waxyaabaha qurbaadka ilaahay kugu dhaweynaya ayay ka mid tahay markaa sujuuddu sideeda shar uma aha ee waxa ay shar tahay marka aad maxalkeedii aad ka leexiso oo booskeedii boosaan ahayn aad dhigto oo aad sanam u sujuuddo ama bini aadan kale aad u sujuuddo ama cid kale oo de maxay haydee ilaahay aan ahayn aad u leexiso sujuuddii markaasay shar iyo gaalnimo iyo kufri ay noqotay marka laakiin sujuuddu sideedii shar uma aha marka maxaad arkaysaa in sharku uu yahay shay caarid ah shay adduunyada shay shar oo meel taaganoo maxdi ahay ma jiro laakiin shay ashyaadan labaynu soo kala qaydin shay cadam ah marka cadamku waa shar iyo shay mawjuuda shaygaa mawjuudkii markuu shar noqonayaa waa marka shay caarid uu ku yimaado ee caarid uu noqdo ee shay daata ahaantiisa uu u leeyahay iyo sifo uu sidiisa u leeyahay ma aha mar haddaba haddii sidaa ay tahay oo aynu arkayno oo aynu ashyaadii sharkii aynu usoo kala qaadnay inuu ka imanayo shay maxay ahaydey cadam ah oo aan jirin sida tusaalahaan sabir la'aantii iyo cifa la'aantii iyo markaynu usoo qaadnay shay mawjuuda oo labadaa usoo kala qaybinay oynu mawjuudkii nidhi isagu sidiisa shar uma aha maxay ahaydey sabab uma aha ama daatahaantiisaba uma ahayn laakiin waa shay caarid ah ayaa waxaynu imanaa ashyaada adduunyada ka jirta ashyaadu waa laba marka ugu horeysa ee ay maxay haydey dhalanayaan ama ay kownka imanayaan iyo maxay marka ay kownka yimaadaan bacda alwujuudi kamaalkooda ay gaadhaan kamaalkooda ay helaan haddaba haddii shar uu ku yimaado inta aanay samaysmin ama maxay haydey aanay abuurmin sharkaa ku imanaya waa cadam ee ma aha shay wujuudi ah oo jira cadamkan waxna kulli waa iska carabi waa iska fahmaya waa macnaha shay aan jirin weeyaan cadamku oo tusaale ahaan
ilmaha yar ee maxay ahaydee jiniinka ah marka uu uurka ku jiro haddii mawaadii iyo waxyaabihii ka qayb qaadanaya korriinkiisa iyo inuu maxay ahaydee uu dhammaystirma la waayo dee ilmahaasi dhalan maayo oo jiri maayo ama geedkii haddii intaa uu soo baxayo waxyaabihii saacidaya dhiiri gelinaya la waayo maxay ahaydee la heli maayo oo geedkii abuurma maayo markaa shaygaa inuu qaabili waayo oo isagu aqbali waayaa waa arrin cadami ah oo aan jirin markaa sharku wuxuu ka imanaya maxay dhinacaana cadam buu ka imanaya haddaba haddii marka bacdal kamaal la gaadho oo shaygii maxay ahaydee marka uu dhammaystirmo ee noloshiisii taam ay noqoto loo yimaadana marka noloshiisii iyo wujuudkiisii uu taam noqdo marka loo yimaadana sharku laba dhinac buu kaga iman doonaa in fasaad sida ku sugan uu yahay oo aanu aqbalin tusaalaan qofka haddii dawo la siiyo xanuun uu leeyahay amaba dabcigiisu aanu maxay ahaydee aqbalaynin cadamul qubuulkaasaa sharku kaga imanaya haddii shay khaarija oo ka baxsan uu yahayna oo tusaale ahaan oo kale ha noqoto qabow ha noqoto roob ha noqdo kulayl shaygaa haddaba khaarijkee ka baxsan waana ka inta badan ay dee kownka inagu aynu ku aragnee sida barafkoo kale ama dabkoo kale ama maxay ahaydee roobkoo kale markuu dadkii uu hafiye ee maxay ahaydee uu qaado marka haddaba haddii uu shar yimaado dhinac ayuunbuu shar ka yahay isagu daata ahaantiisa oo dhan shar uma aha sharkaasi waa shar idaafi ah oo jusi ah oo khaas ku ah maxay ciddaa uu dhibaateeyey ama ciddaa mushkiladu ay soo gaadhay tusaale ahaan haddii daadku uu qaado maanta qof bini aadan ah hadduu qof qaado ama uu qof dilo sharkaasi waa shar nisbiyo ciddaasunbuu khaas ku yihi hadduu guri dumiyo gurigaasunbuu gaar ku yihi hadduu cid kala dhibaateeyo ciddaa u dhibaateeyin buu gaar ku yihi haddii kasoo qaad cadceeddii oo kale haddii dadka qaar ba wax aragteen madaxu qarxado waddamada qaar ama kulaylku marka xaddhaafaba de maxay ahaydee dadka qaarba ay kulayl dirta u dhintaan waxaa la mid ah haddii dab uu meel ka kaco oo uu cid u gubo ciddaa uu gubin buu khaas ku yahay haddaba sharkaa ka dhashay ee ka yimi cadceeddii ama ka yimi roobkii ama ka yimi dabkii isagoo oo shar nisbiye ah laakiin waxa ka badan khayrka iyo wanaagga uu leeyahay khayrkii wanaagga uu leeyahay ayaa ka badan suurtagal ma aha khayrkii iyo wanaaggii badnaa ee cadceeddu ay lahayd ee roobku uu lahaa ee dabku uu lahaa in loo baajiyo oo loo baabi'iyo shar jus'iya oo qof iyo laba iyo saddex iyo koox soo gaadhaysa wax dhici karo macquulana maaha hadda haddii la idhahda cadceeddii kulayl baa ka imanaya oo qofku ma safri kara maalintii ama dadka qaar baa waddamada qaar madaxu ay qarxeeneen cadceeddiba ha laynaga daayo oo cadceeddiba la joojiyo noloshu suurtagal ma tahy nolol ma suurtagelaysaa adduunka ma lagu noolaan karaa energy ma la helayaa noloshanaynu hayne ee maanta aynu ku nool nahay nolol soconaysa oo suurtagal ma tahy may suurtagal ma ah haddii la idhaahdo carruurtaa mararka qaar dabka isku gubto oo ku gubato oo girgiraha ku dhacda dabkaba ha lainaga daayo oo ilaahay oo dabba ha abuurin haddii la idhaahdo bal ka warrama noloshu sidii noqon lahayd suurtagal ma tahy in nolol jirto haddii dab la waayo dabka aynu shidayn in la waayo noloshu suurtagal ma tahy ile kamaal qofku inuu noolaado waxa sabab u ahay waa inuu cunto cunuu raashin helaan raashinkiina dab baa kaa xigeen suurtagal maaha masaalixda faraha badan ee aynu ku waayeyna ayaa ka badan haddii lacallaba la idhaahdo waa sharkaa jusiga haddii la idhaahdo 2 qof iyo 3 qof buu daadku qaaday ama 2 gaari buu daadku qaaday marka mar haddii 2 qof iyo 3 qof iyo 10 qof iyo 100 qof uu daadkii uu qaaday roobkuba ilaahay inaga daa oo roobayaanu soo di'in suurtagal ma tahay suurtagal ma masaalixda roobka ka dhalanaysa ee nolosheennu ku xidhan tahay ee adduunyadu ay ku xidhan tahay ee jiritaankeennu uu ku xidhan yahay ayaa ka badan sharkan jusiga
ee labadan qof iyo saddexdan qof ee daadku qaaday weli laga yaabo wax sayna sabab u noqdaan oo dooxi dul yimaadaan meeshii biyo socdaan yimaadaan meeshii maxay haydeen iyagu inta badan laga yaabo inay sabab u noqdaan lacallaba haddaan ka soo qaadnaba dee shar haddaan ka soo qaadnaba ama in khayr ka soo qaaday marka waxaad arkaysaa in masaalixda ka dhalanaysa ay malaayiin jeer ay ka badan tahay sharka juz'iga ah ee aynu arkayno ee maxay haydey mararka qaar aynu arkayna ka dhalanay suurtagalna maaha markaa in loo joojiyo khayrkii iyo wanaaggii ay maxay haydey ka badnaa in shar yaroo kooban loo joojiyaa wax dhici kara oo suurtagala ma ahe waa shay mustaxiila marka hadda maxaynu isla soo aragnay waxaynu isla soo aragnay sharka waxa keenay horta shar tacriifkiisa waynu soo marnay waa qodobka labaad sharku waxa uu ka yimaadaa ama shay cadamiyuu ka yimaadaa ama shay wujuudiyuu ka yimaadaa shay cadamiya hadduu ka yimaadana de cadamka wax aan jirinba weeyaan adduunyadaba aan olino wuxuu ilaahay abuuray maahaba makhluuq maahaba marka wax ilaahay looma tiirin karaba horta maaha kaas isagu waa qodob wujuudka shayga wujuud kale ee shar uu ka imanayaana waa shay nisbi ah ee ma aha maxay shay caama oo kulli ah oo maxay ahayd adduunka oo dhan wada caam yeelaya shaygaasna waa shayga waqtigan ku soo tusaalayna marka maxay ahayd dilkii iyo waddigii iyo dabkii waxyaabaha la midka ah shaygu marka haddaba kownka uu yimaado intuu imanayana waynu soo marnay waxyaabaha qaar fasaad ku keena ama uu aqbali waayo cadamaha marka uu kownka yimaado ee uu jira bacda kamaal la gaarana laba dhinac ba shirku kaga yimaada mar waa wax isaga ku sugan daatadiisa marna waa shay khaarij oo ka baxsan shayga khaarijka ee ka baxsan sida roobkan iyo dabaylahan iyo daadkan iyo dabkan iyo waxyaabahaasna haddii sharba uu ka yimaado jus iyo koobani waxa ka badan maxay masaalixda iyo khayrka iyo wanaagga boqolaabka ah ee ay leeyihiin inta hadda markaynu kaga soo baxno maxay haydee khulaaso guud oo aynu ka qaadanay sharku qaabka uu yahay iyo meelaha uu ka yimaado iyo sawirka uu leeyahay oo aanay adduunyada ka jirin shay shar ahoo meel taagan shar meel taagan aanu adduunka ka jirin soo sheegnay inuu shaygu yahay shay sharku yahay shay nisbi ah ay waxaynu u imanaynaa waxay isweydiiyaan inta badan mulxidiintu inuu waxaynu ognay shay kastuu ilaahay abuuray inuu xikmad iyo ujeedo ilaahay u abuuray intaanaan taa gelin iyagu hadday u daliishadeen mulxidiintu sharka jiritaankiisa ilaahay inaanu jirin innagu waxayn leenahay khayrka jiritaankiisa waxaynu u daliishanay haddaad leedahay shar baa jira waynu soo marnay sharku siduu yahay inna waynu soo marnay laakiin haddii lacalaba laga soo qaado shar inuu jiro kownka iyo adduunyada oo aad leedahay sharka jiritaankiisu wuxuu caddaynaya ilaahay inaanu jirin khayrka jiritaankiisu muxuu caddaynaya khayrka iyo wanaagga adduunyada yaallaa isagu muxuu daliil u yahay waa inaad tidhahdaa dee ilaahay jiritaankiisu daliil u yahay khayr talabaad khayrka iyo sharka adduunka yaalla kee badan xataa falaasifadii gaalada ahayd iyagu waxay aaminsan yihiin oo ay qirsan yihiin in khayrka adduunka yaalla uu ka badan yahay sharka adduunka yaalla inta caafimaadka qabta iyo inta xanuunsanaysa kee badan inta caafimaadka qabtaa badan cudurka iyo xanuunka iyo caafimaadkaa badan wanaagga adduunka yaalla iyo sharka yaalla mar kasta wax badan wanaagga adduunka yaalla marka mar haddii sidaa ay tahay oo mar kasta khayrku uu ka badan yahay khayrkan yaa abuuro meesha keenay mar haddaad leedahay sharku wuxuu caddaynaya ilahay inaanu jirin khayrkuna muxuu caddaynaya waa inaad tahdaa khayrku wuxuu caddaynaya jiritaanka ilahi subxaana watacaala taas waa qodobka labaad shaygan waxaan soo marnay sharku laba tacriifaan soo sheegnay sharku leeyahy sharku wuxuu ahaa waa wadcu shayi fii gayri mawdici kow iyo cadamu lkhayr labadaa tacriif bayn soo sheegay oo sharku waa in shayga aad dhigto meeshiisii meelaan ahayn tusaale ahaan dilkii inaad dhigto meeshiisii meelaan ahayn wad'igii iyo galmadii aad dhigto meesheedii meelaan ahayn iyo cadamulkhayr labadaa meelood buduu sharku imanaya haddaba adduunyada wax yaalla oo bilaa khayr ma jira innagu waxaynu aaminsannahay haddaynu muslimiin nahay oo caqligu inu tusayaa wax kastoo ilaahay u abuuray in xikmad iyo cilmi ilaahay ku abuuray oo faa'iido uu leeyahy wax bilaa faa'iide ma jiro wax bilaa faa'iide ah sudan wax maxay ahaydee cabad iyo ciyaara ilaahay uma abuurin wax kasta ilaahay xikmad buu abuuray
marka inaga waxa laynaga rabaa inaynu ogaano shaygan xikmadda ku jirta mar haddaynu xikmadda iyo wanaag ku jira aynu ogaanana shar ma noqon karo waxaynu soo marnay sharku waa cadamul khayr waa khayr la'aanba mar hadduu shaygu khayr leeyahay oo khayrkiisu weliba sharkiisa uu ka badan yahay waynagaa soo sheegnay inaanay suurtagalahayn 2 qof oo cadceedda ku dhibaatoonaya iyo 3 qof oo cadceedda ku dhibaatoonaya in la yidhaahdo cadceedda baa loo joojiyaa caqligaaba diidiyay taas marka mulxidka waxaan leenahay shaygan asaga ku sheegaysaa khayr ma leeyahay mise khayr ma laha xikmadi ma ku jirtaa mise xikmadi kuma jirto taas waa qalad hadduu yidhaahdo markaa xikmadi kuma jirto caqligan aad ku ogaatay waa caqli sidee ah ile caqligu xad buu leeyahay talabaad cadamul cilmi ليس العلم بالعدم شيء إنانا شيء ورنكتا أنو فحكمته كتيرتي علمه كتيرة محاها هيدي وتشيدة اللي قال لي هي ما قرني ورنكتا لكن هدي أنا تقرني معناه هذا ما هالشيء قاسين بلا حكمة يبلا وتشيدة يبلا قرشوي وعدم العلم ليس العلم بالعدم مرة هذا هدي سدا آية هاي وملحد كي لبضع قضب أي هرتال وحيابها ay sheegaan waxa kamid ahaa in kuwan evolutionka aaminsan tadawuriyiintu waxay oran jireen jirka bini'aadamka waxa uu leeyahay 180 xubin oo bila shaqo ah oo meeshiis kaga yaalo wax alla waxay qabanayaan aan jirin sidaa daraadeed maadaama oo bila amal ay yihiin wax shaqo ay qabanayaan aan jirin taasi waxay daliil u tahay stageski iyo xaaladihii uu soo marayay tadawurka sidaa markay yiraahdeen ayaa 100 sano gudahood waxa lagu ogaaday xubin 180 xubin ay sheegayeen xubin kasta faa'iidada iyo shaqada uu qabto ee jirka bini'aadamka uu leeyahay marka maalinta hadalka iyagu ay ku hadlayeen waxay u haysteen inaanu sheegay faa'iido lahayn laakiin muddo kadib 100 sano gudahood ah sidii loo waday waxa la soo ogaaday oo la soo saaray in shay kasta iyo xubin kasta uu shaqo u leeyahay shaqo qabto marka adigu marka aad leedahay maanta anigu garan maayo faa'iidada ku jirta هذا أدو أنا تقرين معناه يدو ما هالشيء هو بلا فائدة يسك لكل مقام له مقال بالي هذا مركز سدات هاي وحلاقي يا ويلي سويديان مرحينتو حايل هاي وابور الشيطان كم هو الشيطان كوتشلا حايل بات هذا يألم كهركن تاجن وتشلا محاد طوفان هذا يطبيعها أي فلكانياش وأركيا إنه واحد المرة بمان كانوا كهينا إن واحد كستايش ملي صالحا حكمة دويلة هاي الشيطان كو أبو روح هاي الشيطان كه هو أبو إلى الشيطان هو شرع وانا شيء موجود وميل تاغين أخي waxay leenahay shaydaanka ilaahay wuxuu u abuuray horta maraatib al-ubudiyya imraatibtii ubudiyadu ay dhameystiranto oo qofku markuu naftiisa la jihaado ee shaydaankii uu la jihaado ee shaydaankii uu ka careysiyo ee ilaahay uu magan geliyo intaaba maxaa kor u kacaya darajaad talabaad faa'iidada kale iyo xikmadda kale ku jirta waxa weeye qofku inuu ka cabsado shu'miga iyo cawaaqib xumida ay macsidu ay leedahay iyo dambiga uu leeyahay ibliis wuxuu ku jiray malaa'igta marka hore isagu dimarag ma ahayn laakiin malaa'igtu ku dhex jiray oo maxay ahaydey uu dhex joogay amar baa la siiyey mukhaalafa ku dhacay amarkii ilaahay buu diiday amarkii ilaahay wuxuu keenay in ciqaabkaas uu ku dhaco marka in maxay ahaydey qofka mu'minka ama muslimka uu ka cabsado dambigu heerka ku taagay oo cibra uu u noqdo maxay ahaydey cidda ilaahay amarkiisa khilaafta faa'iidada saddexaad ku jirta waxa weeye waa wax ilaahay waa mishiinkii iyo iskaankii la marinayay bini'aadanka ka xun iyo ka wanaagsan wax kasta iskaan baa la mariya waa aragtay waa shay baar baa la mariya bini'aadankana waxaa ka mid ah qaar wanaagsan iyo qaar sida xadiiska nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay bini'aadam markuu abuuriyay dhulkoo dhan baa ciid laga soo qaaday dabeed bini'aadanka waxay noqdeen minhum dayib walkhabiith wasahl walxazn mid xun iyo mid wanaagsan baa ku jira bini'aadanka liyamiiza alkhabiitha min adayib haddaba qofka wanaagsan iyo qofka xun maxaa lagu kala saaraya waa in la itixaamo la mariyaa maxay ahaydey itixaam waxa lagu kala saaraya wuxuu noqday ibliis iyo shaydaan kii xumaa shaydaanka xun buu raacaya kii wanaagsanaana wuxuu raacaya maxay ilaahay buu raacaya waxa ku jirta xikmadaha ilaahay shaydaanka u abuuray in qudrada ilaahay uu muujiyo oo ilaahay awoodi karo inuu abuuro waxyaabo isku dido iska soo horjeeda caafimaad iyo cudur cir iyo dhul colaad iyo nabad
maxay ahayd dad wanaagsan oo ahlu khayr sida malaa'igta iyo dad ahlu shar ah oo sida maxay ahayd ibliiska iyo shaydaanka oo kale awoodda ilaahay baa ka muuqanaysa arkaas waxa ka mid ah fawaa'idiisa in markasta qofka ilaahay u soo noqdo taa saarto ilaahay maxay ahayd uu baryo sharkii shaydaanka ka magan galo naftiisi maxay ahayd uu ilaahay ku haleeyo fawaa'idda shaydaanka haddaan hala tiriyo ila koobi meel laakiin kuwaasa ka mid ah markaas shaydaankii bilaa xikmad iyo bilaa faa'iido ma aha waxa la mid ah ilaahay wuxuu gaalada u abuuray oo macsida ilaahay u abuuray oo dadku maxay ahayd u gaaloobayaan waxa taana ka mid ah xikmadaha iyo masaalixda iyo faa'iidooyin ku jira haddaan gaala jirin ambiye ma la heli lahaa nebiyaa ma soo bixi lahaayeen haddaan macsi jirin ambiye ma soo bixi lahaydoo nebiye ma la heli lahaa maya awliye ma la heli lahaa shuhada ma la heli lahaa dad saalixiin oo ahlullahi ma la heli lahaa ahlul khayr ma la heli lahaa lama heleen markaa shayga laazimkiisii biduuni malzuumi in shaygii malzuumkaa biduuni laazimi la helaana suurtagal ma ahaba marka shaydaankii maxay ahayday gaalada iyo abuurkooda iyo ahlu macaasida iyo maxay ahayday macsida abuurkeeda xikmadaha badan baa ku jira oo kuwaas ay ka mid yihiin cibaado ma la heli lahaa dad wanaagsan oo soo toobad keena oo soo noqdo ilaahay barya oo ilaahay rasuul soo diro oo ambiyo uu soo diro lama heleen waxa sabab waa maxay macsidaas iyo gaalnimadaas iyo kufrigaas sabab marka kufrigu dhinac buu shaki laakiin khayr badan buu wata khayr aad u fara badan buu wata oo rusushu ay ka mid tahay oo ay awliyadu ay ka mid tahay oo saalixiintu ay ka mid yihiin oo waxaas lama heleen haddaan shar jirin oo dhibaato jirin oo gaalnimo iyo macsi jirin ambiyana ma timaadeen rusulna ma timaadeen ahlu salaax lama heleen awliyana lama heleen shuhadana lama heleen dad markasta ilaahay u soo noqdana lama heleen imtixaanada adduunyada ma yimaadeen maxaa ilaahay uga soo saaray nebi aadan jannada oo iyadoo rafaad iyo dhibaato adduunyada ay taalo maxaa ilaahay mushkiladan u keenay waxyaabaha inta badan laga yaabo kulligii ma aaminsan laakiin laga yaabo in dadka kale xataa isweydiiyaan fawaa'id badan baa ka dhalatay oo haddii xataa aan adduunyada ilaahay u soo saari lahayn nebi aadan calayhi salaatu wasalaam ilaahay cibaadada u abuuray bini aadanka lama helin wamaa khalaqtu ljinna walinsa illa liyacbuduun jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan ambiyo lama heleen dadka wanaagsan ee maanta adduunyada joogay kownka jooga lama heleen maxay cibaadaadka kala duwan inuu qabanayay mujaahadada shaydaanka la jihaadaya lama heleen qofku markuu tacab soo sameeyo farxadda uu ku farxo abaalmarintu way ka badan tahay way ka wanaagsan tahay in mar walba qofku nimco iyo khayr iskaga jiro oo wanaag iskaga jiro mararka qaar qofku inuu tacab soo galo ilaahay baa ugu talagalay wada in la tabcaba oo fi kabad baa bada ilaahay ku sheegay bini'aadamkii ku abuuray mashaqo iyo dadaal iyo hawl iyo rafaad marka tacabka lafti hadda waynaga arkaynaa dadku wada saynisyahan iyo wada culimo noqon lahayn laakiin sayniskii barashadiisi baa adag inta barataa waa in yaroo kooban inta barataana magac iyo sharaf iyo karaamo iyo ciz bay helaan waanay ku faraxsan yihiin shaqada mararka qaar marka ku guulaystaan wada jaa'isadyo iyo hambalyooyin loo qabto in markaa jannadii loo soo dadaalo oo loo soo tabco oo rafaad loo soo maraa waxa ay ka moral iyo niyad iyo maxay ahayday wanaagsan tahay mar walba adigoo barwaaqada iyo khayr ku jira talabaad وبدده تتبين الأشياء أشياء الشيء ضد كيسك أيام حي هيدي وأنا جيد يحس بجد وقعد مركز فقر صومرت أياد غير مدة وأنا جيد أركيسة مركز نبي الرفاض صومرت أياد خيرك يوناج يعافمات وحولي هي فايد ولي هي أدريس لكن المرة عافمات يا أسجتشرتو لقما يابين أدريته وحكم إذا وحيابها لقى يابين إن محي هيدي لويدي maxay ilaahay shaydaanka way hayay uu muddo dheer uu sii jiriyay ambiyaduna ay nolosha markaba ay uga baxayaan u dhimanayaan ibliis ilaahay wuxuu ku talagalay maadaama bini aadamka la itixaamayo oo adduunyada markasta khabiis iyo dayib uu joogo in maxay hayday lagu kala saaro khabiiska iyo dayibka ibliisna de amal fiican buu sameyn jiray oo ahlu waaki malaa'ikta ku dhex jiray amalkiisa ilaahay wuxuu abaalmarin uga dhigay inuu adduunyada ku sii noolaado laakiin ambiyadu sababtu u dhimanayaan wax weeye adduunyada laguma talagelin baqaa iyo nolol horta koow talabaadee kale dee sharcigoodii iyo diintoodii marka ay faaftay bini aadankii ay gaadho cid sii wadaysa oo sii daa'iminaysa
oo hawshii iyagu ay wadeen sii wadaysaa ayaa jirta markaa baahi weyn oo markaa loo sii qabayaaba ma jirto hadda ka soo qaadanaga nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta maalintii uu noolaa iyo maanta wax iska bedelay ma jiro waa sidii islaamka dacfi ha ku dhaco dhibaata ha ku dhacdo nakabaad ha ku yimaadaan nakabadana inaga sabab ah laakiin maalintii nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam diintu sida u dhamayska tirnayd ee qiimaha iyo qaayaha ay u lahayd unbay maanta u leedahay wax iska bedelay ma jiro markaa geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam diintu isma bedelin manay nuqsaamin waxna may noqonin markaa wax keenayo nabigu ilaa qiyaamu saaca uu jiro iyo baahi keenaysaaba ma jirto calayhi salaatu wasalaam haddaynu isnaa shay kasta xikmaddiisa eega iyadaaba de waqti dheer qaadanaysa waxaa lahayn kusoo koobayaa 2 qodob ama 2 tusaale wax kastoo adduunka yaala in xikmad leeyihiin waxaa ka mida fulkaanayaasha fulkaano waa laga yaabaa dadka qaar inay ku dhintaan dhaawac dhibaato soo gaadho iyo mushkilada kale laakiin faa'iidooyin buu leeyahay faa'iidooyin badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah faa'iidooyinkaas in cadaadiskii dhulka hoostiisa jiray uu dibadda u soo baxo kadibna dhulkii istiqraariyadiisa iyo deganaanshihiisa uu dhulku sii haysto oo haddii kale dee dhulka dhibbaaba soo gaari lahayd waxaa ka mid ah in marka fulkaano uu dhaco carbon monoxide uu soo baxo kaasoo markaa suurto gelinaya maxay ahaydee ama saacidaya oo kaalmaynayo maxay ahaydee garab u ah gibilkan aynu ku noolnahay kana qayb ah oo ka qayb qaadanaya in dhirta iyo beerashada wax midhaha la beeranaya inay noqdaan kuwo waxtar leh ama fara badan oo saacidaya wax beerashadii waxaa ka mid ah faa'iidooyin ka dhashaayeen fulkaanayaasha in buura ay samaysmaan in macdan qaaliya mararka qaar dhulka hoostiisa ay kasoo baxdo in mararka qaar fulkaanayaashaas meelihii ay ka qarxeen aaggeeda in dadka qaar ay caafimaad u tagaan oo biyaha kulle diiran ay isku soo daweeyaan oo caafimaad badan laga helo macdan fara badan in ay kasoo baxdo dhulka hoostiisa ku jirta oo laga yaabo waddankaasi inuu hodan ku noqdo taas waa faa'iidooyin ku jirta marka maxay ahaydee fulkaanihii faa'iidooyinka dhulgariirka waxaa ka mid ah dhulgariirku haddii aanu dhulgariir dhici lahayn awoodda iyo enerjiga ku kaydsan dhulka hoostiisa waxay keeni lahaydba in dhulkii uu qarxo oo noloshiiba dee suurtogeli weydaba u baaba'aba markaa faa'iido weyn baaba ku jirta in dhulku uu soo yar neefsadaba laakiin haddii caburiskaas uu ku jiro oo marba dhulgariir ba samayn waayo enerjigiiba dibadda uga soo bixiyo meeshaasun ay ku cabursanaato dhulku waa buu qarxi lahaaba mama jirinba kownkaanu joognaa maanta mama jirinba infijaar baa ku dhici lahaa waxaa ka mid ah faa'iidooyinka uu dhulgariirku leeyahay in macdan badani soo baxdo waxaa ka mid ah faa'iidooyinka uu dhulgariirku leeyahay in dhulka waxbeerashada u habboonee saalixa u ahay inuu ballaadho oo uu farabato oo dhulkii waxbeerashada marka hore wax laga beeranayay isagoo marka hore laga yaaba inuu kobno laakiin marka dhulgariir dhaco in maxay ahaydee dhul badan oo waxbeerashada iyo maxay carrasan ahay in maxay ahaydee uu noqdo carrasan uu noqdo laga yaaba marka hore aan carrasan ahayn laakiin isagu sabab ugu noqday waxaan ku soo ururinaynaa wax kastoo adduun ka dhaca markaa hadda eegada hadda iminka haddaan dhulgariir jirin dhulgariirku marku dhaco maxaan soo mara shaygu isagoo shar dhinac ka ah laakiin khayrkiisa ka badan adduunka shar meel taagan oo madax bannaan ma jiro bayna sharkana waxaan ku soo sheegnay cadamul khayr haddii dhulgariirka khayr yeesho oo fulkaani uu khayr yeesho shar miyuu noqonaya may noqon maayo marka waxaan idhi hadda iminka dhulgariirkii faa'iida ku jirto haddaan dhulgariir dhici lahayn dhulku ma jireenba oo dhulka qarxi lahaa noloshuna way isku tagasheen haddaba haddii sidaa ay tahay in dhulgariir dhaco oo 5 qof ama 10 qof ama 100 qof ama 200 qof ay dhintaan oo dhibaatadaas ay soo gaadho oo weliba laga yaabo meelihii uu ka dhacayba iyagu inay hadday doonaan u dhawaadeen amaba ay maxay ahaydee deegaankiisii ay ku urureen in 100 qof ay dhintaan oo dhibaatada ay soo gaadho iyo kownkaba in la waayo oo bini'aadanka la waayo oo dhulka la waayo oo jiritaankaba la waayo kee daran qofka caqliga jawaabta isaga helayo garanaya
koonkaba in la weyn marka waxaad arkaysaa maslaxada ka dhalanaysa dhulgariirka kun jeer ka badan dhibaatada ka dhalanaysa markaa sharkeedii waa shar nisbiya oo ku kooban 100 qof dhintay laakiin intii aan dhimanin iyagu faa'iido ku jiraan oo dhulkii inuu sii jiro iyagu noloshoodii ay sii jirto ayaaba maxay ahayd u horseeday dhulgariirkaas u horseeday markaa iyagu barwaaqayn maxay ahayd tastaxaash bay ku jiraan iyagu shar iyagoo ma aha barwaaqo iyagoo wati ee cidda sharka ay ku tuubo 100 qof dhintay 200 qof dhintay 50 dhintay iyo deegaankii dhulku ku dhacay guriga ku dibay markaa shar adduunyada ka dhaca ma jiri ee sharka adduunku dhaca wax kuban weey alamka adduunyada ka dhaca maxay alamka qaar waxda cuqubo ilaahay qofka ku qabay qodob alamka iyo dhibta dhacaysana waa wax qofka laazim u ah ama shaygan aynu wanaagga aynu arkaynaba laazim u ah tusaale ahaan foosha ka soo qaad marka haddii imika fooli jirin oo bini aadamku aanu tarmaynin noloshu suurtagal ma tahay may suurtagal maaha in noloshu ay sii jirtaa suurtagal maaha haddaba xanuunkanay hooyadu dareemaysa markanay umulayso xanuunkaasi wuxuu laazimba u yahayba jiritaanka nolosha markaa in la yidhaahdaa hooyadii baa umulayso oo xanuun bay dareemaysaa inagaba daaya oo yaan ciiba umulin maxaa ka dhalanaya halkaa waxa shar ka badan baaba ka imanaya sharkaynagu la yaabanay laazimka ahaa mid kun jeer ka badan baa imanaya marka alamkan hooyadu maanta ay dareemayso waxa ka badan wanaaga iyo khayrka ka dhalanaya marka alamkani dhinac sharbaha ka ahaado hooyadii maxay ahayd shar uga ahaado laakiin sharkana ah shar laazim ah oo qaabkan ilaahay bini aadamka ugu talagalay baa u laazimay oo aanu suurtagal ahayn dikri bini aadamka aan bini aadam noqonin bini aadamkii baan tirmayn bini aadamkii baan jirin bini aadamkii baan maxay ahayd aan suurtagal ahayn oo aan jirin marka mar haddii sidaa ay tahay waxaan leenahay alamka adduunyada ka dhacaya qaar waa laazim qaar maxay ahayd waa cuqubo lagu itixaan lagu itixaamayo ama lagu cuqubeynayo ama abaalmarin bini aadamka waa ka soo qaad haddii marka tuu gacanta la jaro gacanta marka la gooyo xanuun buu dareemayaa laakiin xanuunkan waa wax isagu uu sababsaday xanuunkani waa wax isagu uu sababsaday faa'iidada ka dhalanaysaana ka badan oo haddii maxay ahayd xanuunkaasi oran lahaa xanuun baa ka dhalanaya inaga daaya tuuga oo gacanta ha jarina dee fasaad baa adduunyada ka iman lahaa sharkaynu ka ordayno mid kun jeer ka badan ayaynu arki lahayn oo iman lahaa marka meel horta mulxidku uu iskadaa ma jirto meel uu caymanayaana ma jirto wax kastoo adduunka aynu ka arkaynaa ilaahay xikmad buu abuuray ilaahay cilmi buu ku abuuray faa'iida ku jirta haddii adigu aanad garanaynin macnaheedu maaha waa xikmad la'aan iyo waa cilmi la'aan adiga waxa laga rabaa inaad raadiso oo aad baadho oo aad soo ogaato oo aad eegto intaasaan kusoo koobaya insha allahu wixii aan khalday fa min nafsi wa min shaydaan ilaahay rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wixii aan saxayna fa min allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu